culimada iyo odayaasha deegaanka CULIMADA ee gobolka Buuhoodle ayaa waxa ay ka codsadeen dadka muslimiinta iyo qurba joogta deegaankaasi ka soo jeeda inay ka qayb qaataan masaajidka deegaankaasi. Masaajidkan oo gudihiisu qabyo yahay ayaa waxa lagu wadaa in mutuleel la dhigo, waxaana ay ka dhawaajiyeen culimada iyo odayaashu inay iska ururiyeen barahaan lacagta uu ku kacayo mutuleel dhigista masaajidkaasi, inta kalena ay ka sugayaan dadka muslimiinta. waxaana hadaladoodii kamid ahaa kanaan taaganahay goobtani waa masaajidkii magaalada CULIMADA masaajidkan waxaa dhisay dadka deegaanka ayaa dhisay muddo dheer ayuu dhismihiisu soo socon jiray. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu guuleeyay oo uu noo dhismay masaajidku markaa heerar fara badan oo kala gedisan buu nala soo maray. masaajidka iminka masaajid ahaan wuu dhisan yahay, laakiin waxyaabo fara badan oo masaajidku u baahan yahay baa jirta. waad aragtaan inta kala barka waanu jafnay waxaan u huburonay inaanu masaajidka marmar dhigno dadka deegaanka hadaanu nahay. arrinka waanu isu xilqaanay laba meelood masaajidka marka loo dhigo meel ahaan baanu diyaarinay. meeshii waa diyaar oo waa noo yaala marmarkii oo maartay masaajidka qaybtiisa dambe ayuu noo yaala. qaybta dambena awood baan u weynaa waa qaybta aan hadda maartay lagu tukanayo. marka dadka islaamka ah waxaanu ka codsanaynaa maartay ama codka iyaga maqlaya ama maartay warka iyagu gaadho inay naga soo caawiyaan lambarkow masaajidka marmarkiisa inay nala dhameystiraan. laba qaybood marka loo dhigo qayb ahaan qarashkeedu wuxuu noqday lacag ilaa $2,000. qaybta kalena inta in leeg ayay u baahan tahay. sidoo kale masaajidku male minaarad male oo ah waxyaabaha masaajidada ay u baahan yihiin. sidoo kale masaajidku dayr male oo waxa noogu oodan laama yar yar oo xoday ah oo ariga iyo dameeraha iyo geela aan midna naga celinin. sidoo kale qolkii loo dhigi jiray soolarada iyo waxyaabaha masaajidka agabkiisa masaajidku male. marka dadka islaamka waxaanu ka codsanaynaa in laga soo caawiyo. hadaad tihiin dadka islaamka ah ee daawan doona ama naarki doona ee warbixinteedu gaari doonto gobolka Cayn iyo islaamka oo dhanba meel gudaha iyo meel joogaanba inay naga saacidaan baahida masaajidka oo fara badan oo anagu aanu dabooli kari weynay. xilqaanag sidii hore nagama harin sidii baan dagaalka u wadnaa masaajidka. minaarad male sida macalinku uu sheegay, dayr male, baraagtu waa mid yar, suliyadu waa laba mid kaliya, baahidiisu way fara badan tahay. waxaanu isu xilqaanay inaanu dhigno marmar oo san gogol dambe iyo mujtamac dambe iyo wax la soo gufamina yeelan. waanu kicin kari weynay fayskii anagu aanu awoodnayna waanu diyaarinay. intii kala baahidiisu idinka idin sugaysaa dadweynow islaamka dhageysanayo ama la daawanayo. waxaanu la hadlanaa dadka dibadda iyo gudaba joogay gobolka Cayn iyo islaamka oo dhanba meel ay kasto ay joogaanba inaad baahidaa si degdeg ah nooga tixgelisaan oo naga saacidaan. hore waanu iskala rafanaynay saxaafadna ma naqaamiyeen ismaana taagin way naga taweynaatay waaba qarsan leen hadaanu awood u hayno. marka dadka muslimiinta ah ee daneeya goobaha cibaadada sida maxadada ama masaajidada waxaanu ka codsanaynaa meel kasta ay joogaan inay naga kabaan baahida masaajidka. imika naga qabyo ah sida la tilmaamay awalan gudihiisa oo marmarkii dhameystiri lahaa oo anagu aanu badhayno aanu hayno oo aanu jeclaysanay intaan gacanta saarin badhka kale in laga saacido ay israacaan oo masaajidku uu qabsida ku qabyo beelo gudihiisa. anaga taa jeclaysanay waxaanu leenahay muslimiinta cibaadada jecel ee amalka u tartamow maamaaba waxay masaajidna dhagax dhigo madan la marxaati dhigo dhagax dhigi maanta joogaado ninka xabad marmara dhigta ama xabad mutleela dhigta nimba sidoo yaqaano waa dhagax dhigiyo ilaa inta cibaadadu ka jirto masaajid gudihiisa waa shay ku joogaya ama waqaf waalidka u bixi ama adigu naftaada u niyoodo waad u baahan tahay dee u soo tartan waan halkii laga oran jiray la kala dheere orsa maaho waxyaabaha noocan oo kala nin nasiib laba hela oo Ilaahay haleelsiya. waxaanu leenahay minaarada gudahiisa masaajidka dibadiisa dayrka ah intaaba laga soo saacido islaamka iyo muuminiinta. waxa weeye hawsha masaajidka aan u dhex taaganahay ee qabyada waxa weeye marmarka kala barka naga taagan. masaajidka in qaybina marmar noqoto qaybina boor noqotona waa dhibaato. dadka muslimiinta cibaadada jecel ama hawshan oo kale ka faa'iideysto waxaanu leenahay ka faa'iideysto marmarka kala barka maraya 2500 lagu qiyaasay israacsada. Cabdirauf Aadan Cadi wararka telefishinka caalamiga ee BC 24 Buuhoodle.